قروحو هرمرا شقلا هرمودك أجر لي مركي تعا هجنوجو هادان هوشيتنا هجو هجنوجو هادان هوشيتنا هجو نهرجوجو هودو هاول كركي وحنا بليو kulankeenan aynu isugu nimi saaka agaasimayaasha waxyaha kala duwan ee hay'adda shaqaalaha agaasimaha waxda shaqo qorista madaxa ama khabiirka soo iibsiga mashruuca dib u habeynta shaqaalaha ee bangiga adduunka agaasimaha waxda qiimeynta agaasimaha waxda qorsheynta agaasimaha waxda tababarada iyo xuduudda shaqaalaha khabiirka nagala jooga dib u qaabeynta mashruucaas ee qiimeynta iyo dabagalka shaqada la qabto agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda waaxda howlgabka qaybta farsamada iyo IT-da xafiiska communicationka maxaan ku dhahdaa xafiiska xiriirka gobolada iyo shantiina isu duwee gobolada gobolka Togdheer gobolka Awdal gobolka Sool gobolka Sanaag iyo Saaxil agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha waxaan saaka shirkeenu daaran yahay waxa weeye waqtigiina waxaynu ku jiray dib u habeyntaas waxay ka bilaabmaysaa structure-ka in dib loo eego la qaabeeyo waxaynu hirgelinay inaynu goboladii xafiis ka furno waxaanu idinku yeernay inuu isduwayaasha gobolada ugu yeernaa inay isla jaan qaadaan maadaama la sameeyay qorshihii howlqabadka ee week balaanka ee sanadla ahaa iyo billaha ahaa ee hay'adda shaqaalaha dawladda sidii gobolada uga hana qaadaya sidee u wada shaqeyn sidee loo daadajinayaa structure-ka gobolada way structure kasta oo gobol leeyahay waxa la doonayaa waaxyaha hay'adda shaqaalaha inuu xafiis ku yeesho مثل isuduwihii waa u sareeyaa waaxdii shaqo qorista waa inay section ku yeelataa ka hoos tagtaa waaxdii qiimeynta waa inay ku yeelataa waaxdii qorsheynta waaxdii maamulka iyo maaliyadda IT-ga maxaan ku dhahaa coordination-ka oo xafiiska gobolada communication-ka waa inay hoos tagaa si markaa ay isugu xidhnaado structure-ka guud inaynu habkaa maanta ka wada hadallo taasi waa mid qorshayaasha week plan-ka la sameeyay howlqabadka shaqada ee sanadka ah in iyadana aynu ka wada hadallo sidii goboladii uga hana qaadi lahaa diiwaangelintii u dambeysay iyo waxyaalihii casharada aynu ka baranay inaan ka wada hadallo baahiyaha imika ka jira gobolada ee asaasiga ee kama dhibcaanka ah ee shaqadu u dhaqaaqi lahayd inaan ka wada hadallo ujeedadanu ka leenahay markaa waxa weeye iyadoo madaxdii mashruuca dib u habeynta shaqaalaha bangiguna nala fadhiyaan shaqo dhammaystiran baa sanadkan laynaga doonaya hay'adda shaqaalaha dawladda waxaa laynaga doonayaa dabagalkii iyo qiimeyntii shaqaalaha ee goboladu inay hana qaado shaqaalaha aan shaqaysan shaqaalaha wanaagsan qiimeyntoodii in laydin soo gudbiyo shalay agaasimayaasha guud ayuu daba socdaa kan nugalay shirkani waxaa laga wada hadlayay habka shaqaalaha loo qaato iyo habka labada 16 habraac kamid ah ayaanu qaadanay iyo habka qiimeynta waxaan culayska saarayna waa habka xulistu inaga bada maamulayna soo maraa shaqa laakiin habka qiimeynta shaqaalaha performance-ki iyo performance appraisal report-ki sidii loo soo saari lahaa iyo sidoo kale tababaradii la qabtay sidii loo qiimeyn lahaa maadaama aan imaka sii deynay 3 tababar baan filayay inay yihiin oo lagu qabanayo maxadka tababarka shaqaalaha gobolada bariga oo 3dii ugu horeeyay sanadkan tababar badan oo isdaba joogan waa ugu talagal tababarada la qabanayo sidee isuduwayaashu u soo xulayaan shaqaalaha ma waxay soo xulayaan shaqaale mar hore tababar la siiyay mise shaqaalaha ay cadaalad sameynayaan la doonayaan in maalinba qaar u soo xulaan si shaqaalaha dhan loo tayeeyo sidoo kale tababarka kadib maxay nooga meel yaala ma inaynu lacag iyo resources uun cashuurteeda dadka laga soo ururiyo dayacnaaba mise waa inaynu dib u qiimeeyno shaqaalaha daba galno oo inuu ogaano maxay iska bedelay performance-koodii hawlqabadkoodii akhlaaqdoodii
adeegii ay qaranka u hayeen ay u qabanayeen wasaaradaha maxay iska bedelay xafiisyadoodii maxay iska bedelay akhlaaqdoodii maxay iska bedelay marka run ahaan waxaan doonayaa inaan arrimaha ka wada hadallo ujeedaduna waxa weeye waajibaadka aynu u xil saaranay hay'adda shaqaalaha dowladda oo HR-kii qarankii inuu noqdo mid ka muray oo muuqda oo kaalintiisa buuxiya haddii kale dee kuraasi aynu ku fadhownan waxa waxayna taraysaa qarankana taraysaa ma jirto aniga laga bilaabo iyo intiina kaleba marka waxaan rajeynayaa biidnillah saacadaha maanta aynu shirkaa ku jirno aniguna idinla joogo inaynu si dhaba oo saxa oo ballanqaada oo aynu planiskeena u bedelo actions waxbaynu qorsheynay sanadkii baynu qorsheynay plankaynu qabanaynay ujeedooyin leh maxaan ku dhahaa qorshe leh wax ka howlqabad leh waqti la siiyey cidda ka mas-uulkaa loo sameeyey waax walba kaas aynu u baahan inaynu ficil u bedelno ficilkiina halkan uu ka hana qaaday goboladiisa waxaynu marna si la isugu xidhi lahaa marka inagu waa isqiimeynaynaa waxyaha waa qiimeynaynaa shaqaalaha waxyaha waa qiimeynaynaa isu duwayaasha waa qiimeynaynaa maxaan ku dhahdaa shaqaalaha kasii hoos shaqeeya waa qiimeynaynaa qolada mashruuca dib habeynta waa qiimeynaynaa dhammaanteen waynu is qiimeyn waxaynu isu qiimeynaynaa inaynu dee haddii midkeena aanu shaqadiisi kasoo baxahayn inuu sii fadhiyo maaha waa inaynu isbedel samaynaa haddii shaqadeeni toosantayna waa inaynu ku faraxnaa haddii waxay naga dhimayna waa inaynu casharra ka baranaa inaynu toosinaa ujeedadu waa intaa weeye aad baan idinka mahad celinayaa wixii kale waynu sii wadan doonaa biidni illaahi tacaala waana mahadsantihiin shirkuna waa inoo furan yahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu qaran wuxuu